dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa saaka bilowday olole isugu jira nadaafad iyo banaynta wadooyinkii xidhmay muddooyinka hor taasi oo ay ku jirto wadada loo yaqaan bacadlayaasha ee 1960kii laga isticmaali jiray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer haatan loo yaqaan suuqa laba qow iska rogooyinka iyo cagaf-cagafyada dawladda hoose ayaa saaka aroortii laga arkayay iyagoo burburinaya ganacsiyo sharci darro ah uga dhisan wadooyinka kuwaasoo ay ganacsatada yar ay ku ganacsadaan iyadoo sidoo kalena ay arrintan daba socotay u diyaar garowga 18 May oo la arkayay baabuurka dawladda hoose oo sitami telefoon kuwaas oo dadka ku wacyigelinaya inay calaamaanta Somaliland ay ka soo dhigtaan maryo isla markaasna ay ka taagaan guryahooda ama meheradahooda gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Mudane Axmed Cabdi Falay oo ka hadlay maanta banayntan ayaa waxa uu sheegay inay arrintan isugu jirto laba arrimood taas oo ay ka mid tahay banaynta wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalada Burco oo helin u ah ganacsiga magaalada Burco iyo sidoo kale u diyaar garowga 18 May oo uu sheegay inay magaalada looga baahan yahay inay qaab ka duwan qaababkii hore loo xuso balaaran oo ah wada banayn taas oo aan istiraadadii la xiray wadada dheer aanu banaynayno ujeedada aanu ka leenahay ay tahay bilicdi magaalada oo aanu rabno inaanu si toos u soo celino hadii la ka dhigo sidoo kale waxaanu maanta doonaynaa in aynu madax banaanideennii 1991 aynu go'aanka ku gaadhnay oo caalamka ka dhacday 18 May in aynu caalamka tusno guri walbana calanka Somaliland laga taago sida awgeed waxaan u baahanahay maanta in aynu dariiq kasta aynu banayno hadii la qadaro inta suuqyada insha Allah gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Mudane Axmed Cabdi Falay waxa uu sidoo kale ku hanjabay cidii aan gurigooda sudhin calanka Jamhuuriyadda Somaliland inay ka qaadi doonaan lacago ganaaxa taasi oo aan hore looga baran dawladaha hoose iyo kuwa dhexe ee Somaliland waxaanu soo rogi doonaa meherada iyo guriga aanu ku arki weyno calanka Somaliland iyo gaariga in ganaax lagu mutaysan doono weynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay hawlaha nadiifinta iyo ololaha wadooyinka banaynta isugu jiray ay dawladda hoose ee magaalada Burco saaka hiirti waa bari kula soo kalahday ganacsatada suuqa laba qow ee magaalada Burco iyadoo sidoo kalena la arkayay dadweynaha magaalada Burco oo soo dhaweeyay iyagoo sheegay inay arrintan tahay mid wax weyn ka tali doonta dhinaca ammaanka bilicda nadaafadda iyo arrimaha quruxda ee magaalada Burco hawshan iyada ee maanta la qabanayo waxaan u aragnaa hawl number 1 ah oo aasaasi ah oo lagama maarmaan ah xagga caafimaadka nabadgelyada bilicda magaalada intaba hawsha la qabanayo inay muhiim u tahay baan u aragnaa because waxa dhacday halkan inuu taaganahay shilal ka dhacay waabaha dartood waxba laga qaban kari waayay marba waabka ka baxay ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee magaalada Burco Mudane Axmed Cabdi Falay ayaa waxa uu ku baaqay dadweynaha gobolka Togdheer inay alaabtooda ka urursadaan meelihii ay dawladda hoose baneeyeen isagoo sidoo kale ugu baaqay inay gacan ku siiyaan dadweynaha gobolka Togdheer sidii loo wanaajin lahaa bilicda magaalada Burco oo ay bilicda magaalada laga shaqeeyaan gacan lagu siiyaan dadkaanu maanta wax ka furfurnay iyaguna inay gurtaan alaabada iyo waxyaabaha aanu ka furfurnay ee dhulka yaala cidii furi weyda cidii qaadi weyda ee dhulka aad u taalo annaga qaadayno oo sheegay inuu jidkani ahaa jidkii bacadlayaasha ee 1970kii wadnaha u ahaa ganacsiga magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda hoose ee magaalada Burco waxay waday hawlo la xiriira wadooyin banaynta wadooyinka iyo sidoo kale dayactirka wadooyinka dhex mara magaalada Burco taasi oo ay dawladda hoose ay muddooyinkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah ku guuleysatay dayactirkooda halka ay qaarna wali qabyo yihiin Salmaan Sahal Jaamac shabakada wararka ee Aynaba News Burco Soomaaliya